6 February sanad kasta waxa la xusaa maalinta gudniinka fircooniga ah oo inta badan lagula kaco hablaha daayarta waxaana munaasabad laga filcelinaya sidii loo xidhibtiri lahaa gudniinka fircooniga soo qaban qaabisay wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ee Somaliland. Munaasabadaas oo ka qabsoontay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaasi ka hadlay hooyooyin tiro badan iyo mas'uuliyiin ku hawlan waxtaridda bulshada iyagoo halkaasi ka jeediyay mowduucyo kala duwan ee ku wacyigelinayaan bulshada ku dhaqan Somaliland iyo guud ahaanba bulshada ku hadasha afka Soomaaliga. كوزارة الشقة هي أريمها بالشد يضع كأه هجامتي أقابل سن وحي سماي سياسات كوجان جدني كقبلها ودمان دنياش على الشقية أي نقل الشقية سيدي أي بالشد إنه كوعي يقولين لهين إنه قاعد نعيب بدن إيه إنه قاعد بالشد إنه وعي يقولين بدن سينينا وحي ندور إن أين نتصنه هو يكستا يأبا كستا يدل يرا كستا وإنه قاعد عماي سيسنا إنه هاوش كوضع الشقية inaynu sidii waynu u ciribtiri lahayn gudniinka gabdhaha ee laga dhawaajiyay waxyeelada uu leeyahay maalintii 7 jirtahay ilaa iyo maalintii godka ka galayso dhaqaalaha ku lumaya caafimaad ahaan waxbarashay uga tagayaan muxuu ahaayay umul aroor bay ku mudanayaan maskaxiyan jiriyan maadaama ay dhibaatadaasi tahay mid waartay oo ilaa iyo maalintii 7 jirtahay ilaa iyo dhimashadeeda gaadhaysa waxaanu taaganahay in action la qaato xeerarka la hawlgeliyo oo la joojiyo matalaya qaramada midoobay waxaan sii xoojin lahaa in aynu joojino gudniinka gabdhaha marka waxa ayaan daraa maalin kasta in dumarkeen iyo hablaheena u dhintaan cudurro ama dhibaatooyin ka soo gaaray gudniinka fircooniga say nafiis sheegtay ilaa inanta maalinta loo geysto dambiga iyo ilaa iyo maalinta ka dhimanayso waxa weeyaan wax la aloqo nolosheeda oo dhibaatadaas way haysataa haddaba maxaynu u baahanahay si aynu u gaadhno inaynu noqono bulsho ka madax bannaan gudniinka loo geysanayo hablaha waxaynu u baahanahay arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin horta wacyigelin qoto dheer oo loo geeyo bulshada ilaa halkay ku dhaqan yihiin miyi hadday tahay magaalo iyo guri hadday tahayba ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo afmeeray agaasimaha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ee Somaliland Maxamed Cilmi Aadan Ilkacase dhammaan adduunyadu ka hadasho gudniinka iyo dhibaatadiisa halka uu marayna la iska wareysto dadkana laga wacyigeliyo ka wasaaradahan waxaanu taaganahay in la joojiyo gudniinka waxaanu codsanaynaa in cid kastoo ka shaqeysa aynu xoogeena midayno fariinteena midayno qaabka aynu shaqeynana midayno si aynu wax uga qabano arinta gudniinka hablaha Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga ee Badda Cas Hargeysa.